kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan ee ku xidhan channelkan Siso Official. maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qiso aad u murugo badan oo ku dhacday wiil Soomaaliyeed. fadlan inta aynan u gudagelin qisadan, hadday tahay booqashadaadii koobaad ee aad soo booqato channelka, subscribe noo saar, sidoo kale gambaleelka furo si aad uga mid noqoto kumanaanka qof ee nagu xidhan. qisadu waxay ku bilaabmaysaa sida tan. assalaamu calaykum, waxaan ahay wiil Soomaali ah kana soo jeeda gobolka waqooyi Somaliland, gaar ahaan gobolka Boorama. waxaan ku dhashay waddanka Imaaraadka. anigoo wax yar jira ayaa aabbahay naga soo tagay. hooyaday ayaa i soo karisay aniga iyo gabadh iga yar. waxaan waxbarashadaydii ka bilaabay isla waddankaasi. markaan heer jaamacadeed gaadhay ayuu aabbahay ila soo xidhiidhay, iina ballan qaaday inuu garabkayga galayo, igana caawinayo wax walboon u baahdo. aniga iyo gabadhii ila dhalatayba waxaana loo kaxeeyey dalka Maraykanka oo uu isagu muddo 20 sano ku noolaa. isagu wuxuu ka shaqeeyaa ilaa imkana ka shaqeeyaa isla Maraykanka. markaanu joognay muddo kooban oo aan ka badnayn 2 sano ayuu haddana naga tagay. aabbo isagoo dalka Maraykanka ku nool ayuu haddana naga xidhay meel walba oo aan kala soo xidhiiri karin. nasiibado gabadhii iga yareed waxay qaadatay dhaqankii gaalada, waxayna yeelatay asxaab Amerikaan ah. waxaan isku dayay inaan ka soo laabano Imaaraadka oo ay hooyo ku noolayd, laakiin way iga diiday. hooyaday waxaan booqday sanadkii 2008 waxayna noqotay si isugu kay dambeysay. ficil oo aan maalin sameeyay anigoon ogeyn ayaa waxaa noqotay rag caddaan ah oo aan nujaan ahayn gobolka Minnesota muddo 2 sano ah ayaa waxay soo xadeen kaar ah nooca bandhiga lacagta lagaga saaro. ayay iigu bedeleen kaar aan anigu lahaa, kadibna kaarkaygii ayaa ay qaateen. aniguna anigoon hoos boodin kaarka aan rabo in aan lacagta iga saaro, waxa markiiba laygu yidhi kaarkan waa la soo xaday, adiga ayaan soo xaday. kadibna waa lay xidhay. in xagga faamiliga ka socoto oo igarab istaagta maxkamadda. markii la isoo taagay ma jirin. aabbahayna waan u sheegay laakiin nasiibado adiga ayaa halkaas uunbuu iigu jawaabay. maalintii la xidhay oo ay ku soo wareegtay 9 sano ilaa maanta waxaan ku jiraa meel madow. taas waxa iiga dadan bil ka hor ayaa waxaa la sheegay in ay hooyaday geeriyootay. ma qabo rajo aan kaga soo bixi doono xabsiga, mana qabo rajo aan ahayn ta aan ilaahay ka qabo. ma lihi cid i caawiso oon ilaahay ahayn, mana lihi aabba i garab istaaga, mana lihi hooyo maanta ii nool oo aan in uun is odhan karo gacan bay ku siin kartaa. keligee ila dhalatay, taasina waxay raacday gaalada. ilaahay ha soo hadeeye, ilaahoo soo hadeeye mooyaane cid kale ma laha. aabbahay wuxuu haystaa lacagta ugu badan ee ay haystaan qof Soomaali ah ee ku nool dalka Ameerika. dowladda ayuu ku shaqeeyaa, wuxuu la socdaa oo saaxiib la yahay dumarka caddaanka ah. walaalayaal, haddaad rajo qabto oo aad mission ku hamiyeyso inaad darajo gaadho nolosha, aan anigu maanta rajaynayaa ee ugu weyni waxa weeye in ilaahay iga soo saaro jeelka oo uu soo celiyo xorriyaddii aan ku noolaa muddo 9 sano ka hor. walaalkayga aqoonta leh ee maanta ku hamiyaya inuu madaxweyne noqdo ama wasiirow, anigu maanta keliya rajadayda ugu weyni waxa weeye talow maalin uun xorriyaddaada ma lagu soo celin doonaa. walaalkayga muslimka ahow, waxa keliya aad iga caawin karto maanta waa duco aad iga soo kaalmayso. walaalayaal, ii soo duceeya inuu ilaahay gaalada gacantooda iga soo furfuro. haddii aad leedahay diir damqanaya inuu u soo naxariiso islaamnimo, Soomaalinimo, walaalnimo, walaal ilaahay dadkiis si niyad ah ugu soo duceeya. gacan iga awood badan baan ku jiraaye, ii soo duceeya. ilaahay waxaan ka baryaa inuu iga aqbalo ducada qof walba oo ii soo duceeyo warqadan faafiya si ay ducadaydu u noqoto mid jamac ah. sidoo kale waxaan ilaahay uga baryaa inuu rajo walba wanaagsan u rumeeyo qof walba oo nolosha rajo wanaagsan ka
walaalayaal run ahaantii qisadani waxay ahayd qiso ku dhacday wiil Soomaaliyeed. run ahaantii waa qiso aad u murugo badan. walaalkayga muslimka ah waxaan kaa codsanayaa inaad u ducayso in Ilaahay ka soo daayo gacanta cadowga. waanad ku mahadsantihiin daawashada.